safiirka dawladda walaalaha nahay Turkiga Olgan Beker madaxda bisha cas ee Turkida gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir maamulka degmada aan joogno Kaaraan dhammaan bahda saxaafadda iyo shacabka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn noo ah maanta in walaalahan dalka Turkiga ay nooga soo jawaabeen baaqayna ahaa in bulshada bisha barakaysan ee Ramadaan loo baahan yahay gurmad degdeg ah xaaladaha jira dartood baaqi aan ku baaqnay taakulana in safiirkeena qaaliga ee walaalaha aan nahay inuu si degdeg ah uga soo jawaabay oo ilaa 2,000 oo qoys ugu tala galeen raashin bisha barakaysan Ramadaan iyadana farxad kale noo tahay bisha cas ee Turkiga howlo badan bay ka qabataa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan waana hay'ad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in bisha cas ee Turkiga iyo hay'adaha Turkiga ee ka howlgala dalka la soo dhaweeyo loola shaqeeyo si walaaltinimo ah garab lagu siiyo waayo qofka walaalka ah waa qofka ku imaado waqtiga ugu baahi badan tahay si walaaltinimona kula istaag waa u jeedaan safiirkii Turkiga ayaa degmadii Kaaraan la jooga bulshadii dhex jooga intaasna waxay tahay inuu tuso dareenkiisa walaaltinimo iyo kalgacalka uu shacabkan Soomaaliyeed u qabo annaga maamul gobol Banaadir ahaana waxayna gelinaysaa farxad aad u weyn arrintan ku saabsan marka mar kale dhammaan bulshada ka faa'iideysteen waxaan leenahay ha loo soo duceeyo walaalahan Turkiga in mucaawanada walow ay yartahay haddana waa tusaale in qofka walaalka qofka ku imaado waxna ku qabto soo dhaxgala inuu ka fiican yahay qofka kale marka aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu